wararka dibaddana waxaa ka mid ah dowladda Itoobiya ayaa ka digtay qaraxyo kale oo ka dhaca gudaha dalkaas. digniintaas ayaa waxaa lagu sheegay hadal qoraal ah oo maanta ka soo baxay xafiiska madaxa dowladda Itoobiya u qaabilsan arrimaha isgaarsiinta Axmed Shide. qoraalka waxaa lagu xusay inay jiraan cadeymo muujinaya in ciidankii ku fashilmay qaraxii sabtiga hore ka dhacay Addis Ababa ay maleegayaan inay qaraxyo ka geystaan qaybo ka mid ah dalka Itoobiya. dhinaca kale Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed Cali waxa hore uga baaqay dadweynaha inay feejignaadaan markii isku soo baxayo dadweyne ka jiraan xarumaha waaweyn ee kaabayaasha dhaqaale iyo in ciidanka ammaanka ay ku soo wargeliyaan haddii ay arkaan dhaqdhaqaaqyo ay ka shakiyaan. sabtidii ayay ahayd markii bam gacmeed lagu weeraray dibadbax ballaaran oo ka dhacay Addis Ababa kaas oo lagu taageerayay Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya isbedel doonka ee dalkaas. 2 qof ayaa ku geeriyootay in ka badan 150 kalena way ku dhaacmeen qaraxaasi oo loo xiray ilaa 30 qof oo lagu tuhunsan yahay inay ku lug lahaayeen. ugu dambeynna madaxweyne Vladimir Putin ayaa rajo ka muujiyay hagaajinta xiriirka Ruushka iyo Mareykanka. madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin wuxuu hadalkaas ka sheegay mar uu maanta la kulmay la taliyaha amniga qaranka Mareykanka John Bolton oo maanta socdaal ku tagay magaalada Moscow. waxa uu tilmaamay in socdaalka John Bolton sare u qaaday rajada ku aadan in dib loo soo celiyo xiriirka labada wadan oo haatan taagan heerkii ugu hooseysay. kulankaas ayaa waxaa ku soo beegmaya iyadoo ay socdaan dhaqdhaqaaqyo loogu gobol xaarayo kulan ee Vladimir Putin iyo Donald Trump yeelan doonaan bartamaha bisha soo socota ee